waxaan ku faraxsanahay maanta inaan hortaaganahay dadkii Ilaahay darajay diinta Ilaahay faafinayay tusaalihii Nabi Muhammad nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ahaatee ummadda ku hagaayay waxaan la sheegin oo aan rabaa inaan sheego in culimadu ay yihiin dadkii dhaxlay ambiyada alle ana qof walba oo muslim og yahay inaanay ambiyadii ka dhaxlin lacag guriyo iyo dahab midnaba waxa kaliya ay dhaxleen ay tahay aqoontii alla lagula xiriiray sidaas awgeed waxaan rabaa inaan naftayda tan xukuumadda iyo tan shacabka Soomaaliyeed inaan kula dardaarmo inaan aqbalno waxay culimadu inaga mudan yihiin siinana tixgelinta ugu sareysa oo ay leeyihiin bani aadam sababtoo ah waa dadkaas Ilaahay karaameeyay culimada Soomaaliyeed waxay u dhaxeeyaan dadka oo gobol iyo qabiil ma lahan waxay hayeen kuwii lagu fakan jiray mar walba oo dhib jiro waxaan qirayaa in maanta la joogo maalin noocaasa garteen in sidaas la isugu yimaado waxaan rabaa halkan inaan ka cadeeyo in dadka Soomaaliyeed aan ognahay kulligood inay yihiin dad muslim ah sunni ah haddaba waxaa muhiim ah inaan isweydiino xagee bay joogaan gaalada ay shabaabku yiraahdaan waa la dagaalamayna haddii aan qirnay kulligan hormuudkii ummadda Soomaaliyeed oo culimada ay halkan ka sheegeen in ummadda Soomaaliyeed boqolkiiba boqol ay yihiin dad muslimiin ah sunni ah haysta madhabka Shaafiiciyada waa ayo gaalada dalkeena joogta oo la dagaalamayo waxaan aad ugu faraxsanahay in culimadii ay maantay ka sheegtay ummadda Soomaaliyeed hortooda waxaa kaloo rabaa inaan qiro in dastuurka ummadda Soomaaliyeed uu ku salaysan yahay diinta islaamka waa maxay dastuurka cusub ama dawladnimada kale oo la raadinayo waxaa kaloo ognahay in ummadda Soomaaliyeed taariikhda diinta islaamka ay meel fog kaga jirto sababtoo ah waa dad Soomaaliyeed ama waa dal aan diinta xoog loogu yeerin markii la barbar dhiga carabta oo dhiig lagu daadiyay waa dad Soomaaliyeed oo diinta ku soo galay rabitaan waa dad Soomaaliyeed oo ka turjuma in islaamku uu yahay nabad waa dad Soomaaliyeed oo fahamsan in albaabka salaanta islaamku ay tahay raxmad iyo duco iyo nabad waa dad Soomaaliyeed oo fahamsan diintooda oo fahamsan in jannada aakhirana magaceedu uu yahay gurigii nabadda yaa wada waxan marka caruurta la qarxinayo iyo kuwa la soo maran habaabiyayba nama haystaan qalalaasa ay wadaan beelo ay colaadi ka dhex jirto ama cadow dibadda nooga yimid laakiin waa dad diinta ku nasab sheeganaya oo wiilasheenina ah waa dad isticmaalaya diinta dhibaatadan haysata waxay tahay marka haddii ay qaylo ka yeerto xagee loo cararayo haddii qayl ay masaajidadii ka soo yeerto haddii diintii lafteedii ay qaylo ka yeerto oo kuwa aan sida culimmadu noo sheegtay diin ku shaqaynayn ay iska dhigaan in diintay qayle ka soo yeerayso
maxaa loo baahan yahay dabka wax gubaya shidaalka beenta ah oo loo adeegsanayo ayaa waxaa la leeyahay waa shidaal diimeed haddii markaas dabkaasi ay wax ka dhihi karaan odayaasha dhaqanka ama siyaasiyiinta ama jaamiciyiinta ama ganacsatada ama haweenka iyaga halkan isugu imaan lahaa maadaama waxa la isku haysto ay yihiin diinteen hormuudkoodina uu halkan fadhiyo waa su'aal saxa in la isweydiiyo yaa dadka maanta u noqonaya cidii badbaadin lahayd kuwa carruurteena qarxiya waxay yiraahdaan inta kale inay gaala yihiin oo aniga ka ahayn waxay yiraahdaan culummada waa in la laayo waa kuwiina halkan fadhiya waxay aaminsan yihiin in calankeennu aanu calan ahayn in dhulkeenna nala leeyahay oo annagu aanan lahayn waxay leeyihiin maatada in la laayo waa diinta ay iyagu isticmaalayaan waxay aaminsan yihiin inay diinta islaamka fidinayaan laakiin ummadday duniday nacsiinayaan diinta islaamka waxay aaminsan yihiin inay dadka Soomaaliya ama dhulka Soomaaliya gaala ka xoreynayaan laakiin bilcagsi dalkeena ay gumaysi u horseedayaan waxay aaminsan yihiin inay xukun ku helayaan been aan shaqaynayn laakiin way ku hungoobayaan waa maxay qaacidada isticmaalaan waxay isticmaalaan inay carruurteena qaar qarax ku xiraan qaarna ay qarxiyaan qaarna ay qaxiyaan haddii marka dhaqankoodu uu sidaa yahay adduunyadana aan rabno inaan tusaale iftiin ah ka noqonno ma aha waxaan badbaadinayno keliya carruurteenna ay qarxinayaan iyo dhulkeenna iyo dadkeenna waxaan badbaadinaynaa diinta islaamka oo nala ka rabo sharafteeda inaan ilaalino waxaan ilaalinaynaa cilmigii ilaahay idinku aaminay inaa ummadda ku hagtaan laakiin waxaan ilaashanaynaa taariikhda ummadda Soomaaliyeed iyo magaca dadkeena waxaan rabnaa marka in qof walba oo raba inuu dalka wax u qabto ama dadka wax u qabto ama diinta wax u qabto ama u soo istaagay inuu nabadda ka shaqeeyo marka hore uu bilaabo sidii ummadda Soomaaliyeed loo midayn lahaa midnimada waa in laga bilaabaa kuwana hogaaminaya iyagu inay midaysan yihiin hormuudka ummadda Soomaaliyeed ama dadka Ilaahay darajeeyay oo culimada ah waxaan leeyahay si inaga aad noo midaysaan idinku bilaaba inaad midowdaan sidii loo doortay madaxweynaha dhaqanka dawladnimadeenu uu ka duwan yahay dhaqankii hore dawladnimada ahayd in lagu hago dabdamis waxaan ku bedelnay dawladnimo leh aragti fog aqbashana in dhib iyo xanuun la maro si kuwa nooga dambeeya ay u helaan nolol wanaagsan dawladnimo aqbasha in wixii laga baqi jiray aan laga baqin in go'aanadii laga cabsan jiray aan laga cabsan in la aqbalo inay khasab tahay in dhaqaalaha dib habeyn lagu sameeyo
inay khasab tahay in amniga iyo ciidanka dib habeen lagu sameeyo oo run lagu dhaqo inay khasab tahay in siyaasadda dib habeen lagu sameeyo dastuurkana dib loo qoro inay khasab tahay in musuqmaasuqa lala dagaalamo inay khasab tahay kuweena madaxda inaan tuugada iyo laaluushka iyo qabyaaladda annagu iska bilowno inaan ka fogaano oo aanan kuwa nagu qabiilkaana u hiilin aan tusaale ummadda u noqon karno waxay maraysaa meel fiican waxaan ku soo marnay dhib badan waxaan rabnaa inaan dhib badan ku sii marno si kuwa nooga dambeeya ay uga bilaabaan meel ka fudud meeshii aan ka bilowno idinkana waxaan rajaynayaa inaad ummadda Soomaaliyeed oo aad hormuudka u tihiin waxa la isku haystana ay tahay aqoonta idinku aad leedihiin ina ummadda Soomaaliyeed u qabataan hormuudkaas isbeddelka geeska Afrika ka dhacay oo dhan haddii aad dib u fiiriso saamaynta ugu badan waxa ku lahaa culimada diintuna waxay ka ahayd dayaxa ay dadku daba soconayeen waa haddii taariikhda dib loo raaco taariikhdaas haddii aan mar kale la falgelinno xaaladda maanta aan joogno waxaan leeyahay waxaa la soo gaaray culimada Soomaaliyeed meel walba oo aad joogtiin idinka doorkiina ugu dambeyntii su'aalihii sheekhu halkan iga weydiiyay Xasan Jaamici jawaabtooda hufani waa haa warmutiyeedkii halkan ka soo baxay maalmihii aad joogteen waxaan leeyahay wasiirka wasaaradda iyo cid walba oo xukuumadda ka mid ah in la siiyo muhiimadda ugu weyn si loo fuliyo fulintiisana in laga bilaabo maanta oo aan bari laga bilaabo haddii aad tihiin ciddii markii dhibdhaco loo carari lahaa ummadda u dhaxaysay oo kala saari lahayd kuweena madaxda ah khaladka iyo saxda u kala sheegi lahaa doorkiinu uu ahaa lahaa ama yahay markii su'aal laga jawaabi waayo meel loo noqdo ayuu dalku leeyahay waxaan rabnaa inaad u fahamtiin inaan sidaas u fahamsannahay waxaan rabnaa inaad u fahamtiin inaan ixtiraamkaas idiin hayno in caqligeenna uu sidaas yahay idinkana waxaan rabnaa in haddii siyaasiyiintu iskhilaafsan tahay oo ganacsatadu iskhilaafsan tahay oo haweenku iskhilaafsan yihiin oo dhalinyaradu iskhilaafsan tahay waxaan rabnaa qolo aan iskhilaafsanayn aqoontoodana lagu kalsoon yahay waxaan rabnaa markii idinku tilaabada ugu horeysa inaad qaadaan ballanqaadkayga aniga wuxuu yahay marka hore inaan nafteenna ka ilaalinno inaan ummadda dhibaatayno xoolaha ummadda islaameedna aan khiyaamayno marka labaad ballanqaadkeennu wuxuu yahay dhib walba oo na hor istaaga qof walba oo isku dayda inay nagu celiso dhaqankii aan soo dhaafnay hadafkeennu inuu ahaan doono mid fog fikirkeennuna inuu ahaan doono Soomaaliyada sharafta badnayd oo aan ku soo kornay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.